saddex qayb kale ay noo dhiman ee ka mid ah qaybta nursing oo talkan ardayda inay aad ugu baraatikeeyaan ee ruur ku jirta lafihii iyo wax walba markaas la halmaamo iyo sidoo kale inay practical ku sameeyaan qaabka institute loo sameeyo catheterka loo gelinayo waxaas oo dhan waa skillska aad muhiim u ah oo u baahan yahay qofka nursing inuu aad u barto skillskaas oo dhan diyaar u lanahay insha Allah in ardayda aad ugu caawino arday walba mid walba oo maaha loo kaliya qofka barta caafimaadka qof walba oo department kasta barto caafimaadka waa basic mar walba waa muhiim oo waxa waaye haddii xaafadda aad joogtid oo wax yar caafimaadka aad ka barato in badan aad ku anfici doona waxaa kaloo inoo wixii qaybta kale oo midwife-ka iyagana agabka markaasito ardayda baraatikada loogu sameyn lahaa intooda badan waa inoo diyaar waa cunugii hooyadii markaasito qaabka cunuga caloosha ugu jiri lahaa tan waa balfigi aad u muhiim u yahay marka laga hadlayo midwife-ka oo cunuga meeshii soo mari lahaay iyo axwaashiisa si aad loogu barto kaas waa habdhiska tarankii oo dumarka markaasito qaybtiisa gudaha iyo keliyihii inta badan labadoodaas aad ay isugu xiran yihiin in badan way is saameeyaan intaas kalena waa inta aad ku baratikeynayno sidoo kale inta waxaa naga soo xigo qaabka ay ardayda nursingka ay u sameyn lahaayeen injectionada ama cirbadaha ay u duri lahaayeen markay kow yihiin waxaa waa cillado badan ay imaan karo oo ardayga inuu xididka iska dilaaciyo wax badan ay imaan karaan si aysan intaas u dhicin marka ardayga intuusan gacantiisa inta uu la qabsanayo waxaa u sameynaa in ay ku baratikeeyaan walxaha loogu talagalay kadibna markaas iyaga si toos ay isugu baratikeeyaan waxaan leenahay marka soo wada dhawaada gacan furug soo dhawaada intaan kabacdi waxaa waaye uu furan yahay baranji 3 oo qaybtan taleexa laba baranji hore oo soo jirtay tii saddexaad maanta hirgelinay marka waxaan idin leenahay dhammaantiin soo wada dhawaada gacan furug soo wada dhawaada waxaa kaloo jiro hadda wili qaybtan inta baranji 3 aan soo kordhinay qayb ultrasound ah bararka doorno oo ultrasoundka aan ku barayna ardayda insha Allah hadii aan lahayd uur ku jirtay iyo hadii aan lahayd waxyaalaha la halmaamo obstetric ultrasoundka marka soo wada dhawaada dhammaantiin gacan furug soo dhawaada maama Amina College of Health Science شنو تحب صار صوت انا سومالي انا فقدي واحد سنه هذا كذا تعبان ماشي في شربين waxa meesha yaalo waxa si darmo dad isticmaal cunlaha oo filnaa la yahay umada ayagu mutaakhirisana ay ka baahiyiin si fiican سوي استاذ شيخي bulshada ay naturalka ah ayaa dana waxay nafaqada wada dhimanaya ilmi ama maamooyinkii waxay la ildareeyeen kadaro marka waxa ugu badan ee inaan badbaadino behavior change inaan sameeyno oo bulshada aan ku dhiirigelino inay isticmaalaan cuntooyinka nafaqada ay ka helayaan sida ugu dhaqsiga badan waxa sababna adula iraado cooking demonstration oo sameeyno insha Allah